السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمة بدن والله شرفت بدن. إله سبحانه وتعالى وحن ودي سنة يا أنا إذن إنه هجرنا وكل ميو إن إله سبحانه وتعالى قلوبتنا وكبوحي حسكي جل شأنه. إله سبحانه وتعالى قلبنا وسكينة ودجي سيد إله أيري هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إنه لا يحسلوني إيه سكينة إيه خير إيه نعمة وقوة من قلبنا. أنت كذب waxaad arkaysaa maanta qof socdo oo dunidan joogo oo ku dadaalaya jirkiisa everyday. hadduu nin yahayna jiim buu aadayaa, wuu socdaa, training buu sameynayaa. hadday gabar tahayna kareem iyo dawooyin iyo xinno iyo qasil iyo waxay ismarnaysaa. qofkii wuxuu ku mashquulayaa waa hagaajinta jirkiisii, laakiin marna ma dayayo, ma milicsanayo in uu qurxiyo u wanaajiyo qalbigiisii. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. waxaa hoogay, waxaa halaagsamay, waxaa baaba'ay, waxay u dhammaatay kuwa qalbigooda uu ka mashquul xuska ilaahi subxaanahu watacaala. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. kubaasi baadi cad bay ku sugan yihiin. walaalkayga qaaliga ma ogtahay qofka nool ama qofka xanuunsan ee isbitaalka ku jira ee sariirta saaran haddii biyo loo diido, haddii cunto loo diido, haddii raashin loo diido, haddii jiif loo diido inuu dhimanayo. sidaas lamid a qalbigaaga haddaad khayrka u diido, haddaad qur-aanka u diido, haddaad dikriga ilaah u diido, waxaad ogataa inuu dhimanayo. haddaad everyday ku mashquulsan tahay adduunyo, haddaad ku mashquulsan tahay macaasi iyo dhagaysiga heesaha, haddii aad ku mashquulsan tahay xan iyo ma aragtay kalaamu dunya, waxaad ogaataa qalbigaada inaad khayrka oo dhan u diiday. haddaad qalbigaada khayrka oo dhan u diidayne wuu dhimanayaa. ilahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa. ilaahay subxaanahu watacaala meeqa jer buu qalbiga la hadlay, imise jer buu ilaahay qalbiga la hadlay, oo qalbiga aayado badan oo qalbiga ka sheekeynaya ilahi subxana wataala uu soo dejiyey. ninbaa hadda kahor wuxuu soo maraa layidhi reer oo oynaya oo laga geeriyooday oo ay tacsi u taallo oo baroortu isqabsatay. markaasuu ku yidhi maxaa idin ku dhacay? markaasa waxay dhaheen tacsi baana tala soo maaragtay. markaasu wuxuu ku yidhi ma waxaad u oynaysaan dad jirkoodii uu dhintay, oo maad u oydaan kuwa nool noolee taaganay qulubtooda ay dhimatay? maanta imise qof oo qalbigooda dhintaa guryaheena ku nool oo taariku salaad ah. maanta imise qof oo qalbigooda dhintaybaa ku nool oo marna muxaadaro aan dhagaysanaynin, inay macnaha macsiyo dhagaystaan, inay heese dhagaystaan, inay sawirro xun daawadaan, inay jaatin ku jiraan, inay ilaahay caasiyaan. salafkii hore waxay oran jireen quluubtu waa almasaakin, waa guryo, ama qalbigu waa guryo loogu talagalay in ilaahay lagu xuso subxaanahu watacaala. markaasaa waxaynu ka dhignay guryo shahawaadkeena. maanta qalbigeena waxaa ka buuxa shahawaadkeena iyo waxaynu jecel nahay iyo waxaa ka buuxa mataqaanaa macaasi. ilaah subxana watacaala wuxuu yidhi afara'ayta in matacnaahum siniin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. يعني هدي سبحانه وتعالى وحليه كورنا هدي إنير لو سي الدنيا لو بالبلاريو قريو ما شاء الله شقفي عن أولاد في عن مدير بنقول رحينا يا كذبنا إلهي أكو قبته. إلهي حليه ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. دوحي لو رحيه محي كوترتي أفر مالين بيسوكا دبر دعضي سناب سو دكسو بحلقان سو دكسو كاركا مرسو حلقان أبع شقان هلي باورته هيسا كل حد دقيسو هلا جالات بتويا هلا تونتو أفر عشاد بودوت متى كدبنا واحد لو كانسر باكو قدعي أما واض متى أما حنوب باكو قصب ودي ما حد فائدة أما نفتها كابحذي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وحي اللي بقول رحيه محي كوتري أدوية دفع عرتي محي كوترتي إلى سبحانه وتعالى وحول بروح حكا قيم بدن وحسك إلى سبحانه وتعالى حسك إلهي بدي قلبي هذا إنه دنتو ما أركتي كفجو قلبي هذا كله ولا حسك إلهي سبحانه وتعالى قلبي هذا دنتو سهلا لقونا ولك روحويان وحسك إلهي سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن وبر الوالدين وحويا وطاعة وقيام الليل وناك بدي سو إله سبحانه وتعالى قيامها كوسو حشريو مع عرفت عنده قلب ونفسن لي. وكان نبي الله إبراهيم عليه السلام كدو عيساني وليه يوم لا ينفع مال ولا بنون. maxaa iman doonta maalin
uusan maal waxba ku taraynin guryahaad dhisatay iyo bologyada aad jeexatay iyo kaararkaaga iyo awlaadaada iyo caruurta aad dhashay everything wax ku taray ma laha yawma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allah ilaa ilaahay qofka u siiyey maana hee biqalbin saliim qofku ilaahay qalbi saliima uu siiyey qalbi ay ka buuxda laa ilaaha ila allah qalbi uu ka buuxo jacaylka ilaahi subxaana watacaala qofkaas ayaa maalintaa barmoodaya qofkaas ayaa maalintaa liibaanaye qalbigaaduusan ku dhimanin macaasidii shahawaadka ee ku noole xuska ilaah subxaana watacaala jazaaka allah baaraka allah fiik xayaakum allah ilaah subxana wataala waxaan weydiisanaya idinka idin weydiinaya oon ummadda u weydiinaya inuu ilaah subxana wataala qalbigayga noolayo oo quluubtiina noolayo oo ilaahay qalbigeena jeclaysiiyo xuska ilaah subxaana watacaala بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى أن حافظوا إلى أن دوروا خير بإذن الله إن شاء الله